جامع محمد حدولي يا أحمد جامع مرة قدوميها هي قدومية كحجان كشاليد الصومالي لان قبل كهسن waxay maanta halkan u joogan ogeysiin ay u jeedinayaan jaaliyada Soomaaliland ku nool gobolka Heesan taas oo ku socota shirweyne isku imanaysa jaaliyada ku nool gobolkaasi oo dhawaan ay jaaliyadu arrimaheeda u gaarka ka tashanayso waxaan marka hore ku bilaabay gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliland ee gobolka Heesan Mr. Jaamac Maxamed Xamdulle ku soo dhaw shabakada somalilandlife.com aad baad u mahadsan tahay iid waxaan aad ugu hambalyeeynaa website kan Somaliland Life sida fiican runtii u soo tabinaya waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay su'aasha fiican aad weydiisay waxaan uga jawaabayaa su'aasha runtii waxaan wadnaa waa hawl qaban qaabo jaaliyada ah waliba gaar ahaan haysan oo aan doonayno in aan kulan iskugu keeno taas oo ah lagu dooran doono gudoomiye iyo guddi dhexe oo hawsha maamula aad baan hawshaas aan u wadnaa waxaan dhammaan aan ka codsanayaa ummadda ku nool haysan gaar ahaan gobolka haysan waxaan aad uga codsanayaa inay ka soo qayb galaan xafladda oo dhici doonta 30 bishan ilaahay ka dhigo marka dhammaan ka soo aad baad mahadsantahay gudoomiyaha ku soo noqon doona hadda waxaan u gudbaynaa gudoomiye ku xigeenka ahna fanaanka dada yar leh Axmed Jaamac Mire Axmed Sikaawi ku magac dheer wuxuu hadda halkaas u joogaa wuxuu kamid yahay gudoomiye ku xigeenka amba gudida qaban qaabada shirkan sidoo kale waa gudoomiye ku xigeenka jaaliyada Soomaaliland gaar ahaan ee gobolka Heesan maxaad inta ku diraysaa gudoomiye ku xigeen horta aad u mahadsantahay wariye iid bahda suxufiyiinta Soomaaliland oo dhammaan horta aad baan ugu mahadcelinayaa sida daacadda iyo fanaanta leh ay uga waramayaan wararka ay soo diriyeen teeda labaad waxaan ku darsan lahaa anigu horta maanta oo ay maalin farxad ay tahay in aan la kulmo website-kan qaaliga ah ee Somaliland Life in aan orahdeeda ka jeedino si aan shacabweynaha ee reer Somaliland ee ku dhaqan gobolka Haysan gaar ahaan caasimada Frankfurt in aan shirweyne aan qaban doono 30 bisha marka ay tahay oo maalin sabti ah maalintaas oo aan kaga hadli doono sidii aan ayahayaga uga tashan lahayn iyo aan dalkayga horumar u gaarsiin lahayn taa waxa kale oo raacday waxaan shacabweynaha gobolka Haysan kula dardaarmaya annagu waxaan ahayn guddi jaaliyada oo loo doortay guddiga aan ahayn waxaan jecel lahay in aan dadka ogeysiino wixii aan qabanay iyo hawluhii aan sameynay iyo waxa noo harsan iyo sida ay noola qaban lahaayeen waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan shacabweynaha reer Somaliland 30 bishana waxaan idinka sugaynaa in aad ka soo qayb gashaan hoolkaas oo ku yaala magaalada Ruusalheim taas oo ay ku sugi doonaan dhalinyaro guddiga kamid ah iyo jaaliyada dhammaan shacabweynaha reer Somaliland dhamalka ay ku sugi doonaan dadka ayna farxad iyo sharaf ku soo dhaweyn doonaan gaar ahaan bahda jaaliyaduna waxaan leenahay welcome ku soo dhawaada qalbi furan waxaan leenahay wadalkeena waxaan wax u qabanaa waa in aynu ayaheena dambe iyo mustaqbalka dalkeena ka tashanaa assalaamu calaykum gudoomiye ku xigeen ama kuga intaanad ka bixinaan ku si raaciyay marka laga tago gudoomiye ku xigeen soo kale fanaan baatay maalinta ma ka tumaysaa oo ma qaybtaada fakra ma kaga qayb qaadanaysaa kulanka isku imanaysa jaaliyadu horta walaalo iid waa su'aal wanaagsan taa laftarkeeda aniga laftarkeyga waxaan jecelahay shacabweynaha reer Somaliland meel kasta ay ku kulmayaan iyo maalin kasta oo farxad u ah oo ay jaaliyaduhu shirar dhiganayaan in aan kala soo qayb galo oo aan farxadda nafankeyga aan ugu raaxayo shacabweynaha Somaliland si ay dalkoodiina wax uga qabtaan oo guna dhiiradaan heesaha wadaniga halkaadii ka qaadi doono waxa kamid ah album cusub oo aan imika soo wado insha Allah taala bishan gudaheeda soo bixi doona ayaan uga qaadi doonaa shacabweynaha reer Somaliland aad mahadsantahay hadalka u dhameeyay waxaan ku mar labaad ku soo celinayaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliland gobolka Heesan Jaamac Maxamed Xamdulle maxaad jaamac inta raacinaysaa oo baad ku dari lahayd ama baad ku soo gabagabeynaysaa runtii waad mahadsan tahay iid hadalka waxa dhameeyay gudoomiye ku xigeenkii intii ugu qurux badneeyay yiri laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan jaaliyada Somaliland meel kasta oo ay joogto sidii la isku kaashan lahaa oo la isku marka loo midoobi lahaa falogada hala qabto insha Allah waxa kaloo aan ku darsanayaa kulankaas kadib inuu dhici doono kulan kale oo loogu dooran doono gudoomiyaha guud ee jaaliyada Somaliland oo ku macsuuma gobolka Haysan shirkeeda marka aad baad mahadsantahay aad mahadsantahay daawadayaal waxaan gudoomiye ku xigeenka jaaliyada Somaliland ee gobolka Heesan dhamaantiin waxaan ka tegnaa nabadgelyo oo anigu Iidaan Cabdiya iyo shabakada somalilandlife.com